ururka mutadawiciinta waxqabadka arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka aafada deegaanka ee Samakaal oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaasina u badan ganacsatada gobolka Gabiley ayaa maanta lagu shaaciyay munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose degmada Gabiley. munaasabadaasi oo goobjoog ka ahaayeen maayarka magaalada Gabiley Axmed Maxamed Khaalib, xubnaha ururka Samakaal, uqaasha waxgaradka iyo ganacsatada, musharaxiinta xildhibaanada golaha deegaanka u sharaxan ee xisbiga kulmiye iyo weliba mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan. waxaana ugu horeyn munaasabadaasi shaacinta ka hadlay gudoomiyaha ururka mutadawiciinta ee Samakaal Kayse Xaaji Muuse Cilmi oo sheegay ujeedada ururka Samakaal ee mutadawiciintii loo shaaciyo isla markaasina isagoo sheegay inay u xadka xidheen ka qayb qaadashada dhismaha dooxada weyn ee Arabsiyo iyo isbitaal guud oo dhimirka loo dhiso dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley, isagoo baaq u diray qurba-joogta reer Gabiley isla markaasina ugu baaqay inay ka qayb qaataan ururka Samakaal oo urur mutadawiciin ah isla markaasina ay dadweynaha reer Gabiley gacan ballaaran siinayaan. waxaa la aasaasay 2016 bishii November ayaa la aasaasay ururka ilaa hadda uu shaqeynayay maadaama ururku intaas u dhow soo shaqeynayay waxaa ururka loo aasaasay ujeedadiisuna waxay ahayd markii aanu aragnay deegaanka gobolka Gabiley waa deegaan aad u ballaaran dadka ku noolna dad aad u tiro badan yihiin deegaankaasi oo ay ku xeermeen baahiyo isdul buuxiyo aad iyo aad u farabatay ayaa waxay nagu kaliftay inaanu iskaga nimaadno inteedii oo aanu yeelno inaanu ka wada tashanno sidii danta guud aan wax ugu qabsan lahayn. oday Ibrahim Cali oo ka mid ah odayada ururka Samakaal bilowgii aasaasay isla markaasina ka mid ah tiirraxaadka ururkaasi oo isla halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jir wax loo wada qabsado. waxaa halkaasi iyaguna ka hadla xubno aad u tiro badan oo ka mid yihiin Shaayib Maxamed Muuse, Dr. Axmed Maxamed Cali Sango, Axmed Maxamuud Shirwac, Safiya Waadan Meecaab iyo weliba uqaasha deegaanka gobolka Gabiley oo dhammaantoodba sheegay inay soo dhaweynayaan ururka Samakaal ee isagu isku xilqaamay, iyagoo ka waramay waxyaalihii badnaa ee ururka Samakaal hore ugu soo qabtay deegaanada gobolka Gabiley muddadii uu ka shaqaynayay, taasoo ay ku tilmaameen in ahmiyadda koobatay xabaaraha magaalada Gabiley, isbitaalka guud ee magaalada Gabiley iyo weliba waxyaabo badan oo aad u tiro badan. maayarka magaalada Gabiley Axmed Maxamed Khaalib oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa isla sidoo kale sheegay inay ka maamulaan soo dhaweynayaan isla markaasina ka qayb qaadanayaan ururka Samakaal wixii karaamkooga ah. shaacinta ururkan ayaa ku soo beegmaysa ururkii mutadawiciinta ee ugu horeeyay waxqabad iskooda ka qabtay guud ahaanba gobolka Gabiley ee lagaga shaaciyo gobolka Gabiley, taasoo maantana qaara loogu ururiyay lagaga qayb qaadanayo arrimaha horumarinta gobolka Gabiley, iyadoo laga filayo in qurba-joogta reer Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley ay dhawaan ka qayb qaadan doonaan dhismayaasha mashaariic ay wadaan ururkaasi. waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV qaranka Gabiley.